aniga hooyadii iyo aabahay waxay kala tegeen anigoo 5 sano jira haddaan qisadeeda ka waramo kadib 6 baan ahayn caruura hooyo aaba markay kala tegeen hooyadii iyo aabahay waxay ku heshiiyeen inaan 6dii kala qaataan hooyana 3 qaadato aabana 3 qaato si loo kala qaybsado caruurta aniga oo inana iyo labadii wiil waxaa la nagu daray 3 aaba qaadanayeen marka dhibaatada ugu badan aniga igu soo dhacday aabahay baa la geeyay waqtigan yaraa aabahay baa la koray maasha Allah si fiican buu soo kariyay waxba i baray laakiin dhibaatada la soo kulmay waxay tahay inan baan hay hooyo la'aan ma noolaa karo kadib aniga soo haray anigii meeshii waxaan ku noqday qof tee ku dayacan ilmo yar oo hooyo haysan oo walibana gabadha dareemi kartaa waxbarasho la'aan bay u dhacday inuu aabahay madrasad quraan bii geeyay iskuul layguma darin waxbarasho kale layguma darin teemaan arag qof attention siiyo iraadiya waxay noqotay maalintii waqtigu intuu ka tiri laga yahay dhan ina waqtiyada roobo ku daayaan ina tooxyada ku soo ciyaaro anigoo gabadha habeenkii baan soo hooyanaya tobanka habeenimada doonto waqtigiyada habeen madow ah sida meelaha soo taaganahay dibadaha ugu soo ciyaaray anigoo walibana ilmo yar oo naqan markaas aad u yar 10 sano aan gaarin baan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegaya guriga soo noqonaya waan imanaya qof ismagay weydiiyo waxaan ku maqnaa tee qof ima hagaajiyo timahayga qof ma hagaajiyo jirkayga qof ma hagaajiyo aabay sagaalka habeenimo imanaya uu seexanaya diwaanin dareemi kartaan anigii baa guriga ku dhex dhibaatooday alxaasin waan weynaaday waan koray waxaan dareemay inay hooyadii joogin oo hooyadii ay magaalada ka maqan tahay aabay waanu sheegay arankii waxaan ku dhaabo waxaan rabaa inaan hooyadii u tago waan hooyadii la joogo maadaama aan inan hay aabahay markii hore uu iga diiday laakiin markii dambe way ogolaaday awowgii hooyadii dhalay baa la soo raaciyay oo Itoobiya ka soo kaxeeyay Hargeysa keenay hooyadii baan u miday hooyadii markaan u miday hooyadii iyo aabahay heshiiskoodu wuxuu ahaa inuu aabahay 3 haysto hooyadiina 3 haysto laakiin aan waxba ka mooyin oo ilmo yar baan markii kala tagay hooyo markaan u miday habeenkii markaan guriga soo hoyday subaxnimadii gaariga la saaray Itoobiya guriga aabay dib liigu celiyay mar labaad haddana sideedii baa dhacday waxaan ir hooyadii baa rabaa aabay dib gaarigii soo saaray Hargeysa intuu soo noqday hooyadii baan u miday marka sababtu ku celinayna waa heshiiskan dhex yaala sababtu hooyadii celinaysa waxay ahayd hooyadii aabahay maadaama aabahay diiday inuu biilka bixiyo hooyadii talada waxa ku goysay inuu 3 haysto iyadina 3 haysto aan la isku imanin marka aabaha ku noqo aabaha la joog aniga hay imanin anuu ninka la guursaday nolol kala samaystay aabahana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama uu 3 kale biilin waayay adiga afar kuma hayn karo adigu waxa dhacday inaan ku dhaho aabaha la garaaco oo aabaha loo sheegay inuu kula joogayaan aabaha la wacay waxa lagu yiri inanta yar soo baxsanaysa te waa ilmo yar hayla joogta biirka bixi maadaama aanu 3 kala hayo aaba wadiiday marka aabaha iyo hooyadii way tanaasul weyday oo way diiday inay ii tanaasusho ay tiraahdo ilmo yar soo baxsanaya ee kulba Itoobiya ka imanaya laba wadan soo kala gudbaya iska daa aabahan wuxuu diiday inuu tanaasulo waraab ilmo yar soo baxsanayso hooyadu daa labadu tanaasul waayeen oo laakiin aabahay iyo hooyadii xumaantii dhexdooda taalay ay hooyadii diiday inaan guriga joogo aabahayna hooyadii dhibaatadii dhexdiisa taalay buu diiday inuu biilku bixiyo hooyadii iyo inuu weyno walaashii curadeeda way wada hadleen heshiisku wuxuu noqday ina caawa tumak habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro albaabka laga saaro